kumanaan ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay ka qayb qaadashada sugidda nabadgelyada caasimadda iyo sidoo kale taageerida howlgallada ay ciidamada amniga ka wadaan degmooyinka gobolka Banadir. waxaana kulankani ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Ismaan iyo Yarisow. sidoo kale kulankani ayaa ujeedkiisu ahaa ka hortagga banaanbaxyada lagu qalqalgelinayo amniga iyo horumarka caasimadda. qaar ka mid ah haweenkii kulankani ka qayb galay oo hadlay ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada amniga magaalada Muqdisho. marka ma rabno banaanbax rabshado wata dadka lagu laaynayo lagu biladaqaysanayo lagu dhibaataynayo laamiga bilicda walaalaha turka noo dhisay lagu gubaayo lagu canjalo dhibaato inoo tahdana haweenka Banadir ma doonayno tan cabsanayso fadhiga ka soo kac waa lagu arkaa annaga ma baqano mana cabsano habeenaynu waanin garabka ciidamadan taagana ciidamadeena guul Allah siiyo garabkoodana gaashaankoodana inaan biyaha ka daba qaadna caanaha ka daba qaadna xabada markay tuura xabada sabaayada adka aan u gelina u taagana haddaan nabad jirina nolol ma jirto hooyo ka dhimanaya adaa dhalay oo waa wiilkaagii ka dhimanaya adaa dhalay oo waa odagaagii baa u dhaxa ka dhimanaya adaa dhalay oo waa walaalka nolosha waxay ku jirtaa nabadda haddaanu nahay dumarka Soomaaliyeed. anigu waxaan samayn jiray barnaamij la yiraahdo haloo ooyo hooyada maxaa jira dhibka hooyadu ku dhacaa wax kasta oo dhaca oo dhibaatada hooyaday ku dhacdaa marka hooyo waxaan ku garab taaganahay anigoo hooyo oo ayeeyaa nabad baan rabnaa nabadu waa nolosha furaheeda. gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banadir Jawaar Barqab ayaa ka warbixisay muhiimadda kulankani. kan wax qarbudaya inaan u sheegno ama qabiilka raba inuu annaga intuu durbaankan u turno liidan waa dawlad xun waa la duminaya horta inaan u sheegno annagu wax dhisan ku dhex noolaan karnaaye inaan dhahna ka yeelimayna hadaa tahay dumiye inadaa ma ogolaanayno wax duminta arna Soomaaliyeed inay runta isu sheegto hooyo walba yaa hooyo ruqiyo oo kale xilligan kuwa dhimanaya jiida kuwa ka dagaalamayo bacsanaya ma ogolaanayna banaanbax wax lagu duminayo ma ogolaanayna dawladda in la dumiyo ma ogolaanayna in caruurteena jaamacadaha iskuulada inta loogu tago la tashkiiliyo ma amniga gudoomiye barnaamijkan maantay haweenka Soomaaliyeed annaga qabsanay annagaana ku yeeranay annagaana hadlayna waxaana u wacna waxay tahay marka gudoomiyaha gobolka Banadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Ismaan iyo Yarisow oo kulankani soo xiray ayaa uga mahadceliyay haweenka Soomaaliyeed sida ay had iyo jeer u garab taagan yihiin dawladnimada iyo horumarka socda. waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo in haweenku ay leeyihiin annaga caasimadda iyo dalka uma rabno fawdo iyo qalalaaso uma rabno in caruurteena iyo dhalinyaradeenii waddo xun lagu abaabiyo uma rabno in dhalinyaradeenna la qaldo ma rabno qaswade rabadan siyaasadeed ama danley gaara uu leeyahay waxaan rabnaa ummad horumarta caasimad la jaanqaada caasimadaha kale horumar iyo dawlad federaal ah oo adduunka oo dhan laga aqoonsan yahay oo hirgasha intaas ayaa u taagantihiin soo maaha haddaba dadka farakutiriska qaswadayaasha maanta waa idin maqlaayaan markay arkaan xuduudda isku soo baxdeen sida aad u garab taagantihiin ciidamadiina dawladdiina nidaam iyo horumarna runtii ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa u jeedaan waxaan leenahay ishii bugtaay maxaa la dhihi jiray Nuur Saciid Haliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.